Assalaamu calaykum. Meel walbo joogtaan waan idin salaamay. Waqti kastay ku tahay habeen, subax, galab wanaagsan. Intaa kadib muuqaalkan cinwaanka ayaad soo aragtay kadibna gudaha ayaad usoo gashay. Waxaan rabaa marka inaan kula wadaago weerar lagu hayo qoys ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed oo ay ku hayaan dadka baraha bulshada isticmaalo oo u qaybsamo kuwa daawadayaasha ah iyo kuwa userska ah oo maaragtay YouTubers iyo TikTokers iyo waxay yihiinba. Dadkaas ayaga waxay dagaal kula jiraan family isjecel, isdoortay, ayaga noloshooda ku qanacsan, ku faraxsan, maaragtay wax ka halaysan aanay jirin. Si kastay tahayba waxaan doonayaa marka inaan familkaas aan fariin u diro dadkan ii sheeg aan isleeyahay caqabad ay kala kulmayaan aan fariin u diro. Marka intaanan fariimaha u gudbin waxaan rabaa inaan idin tusiyo cabashada qoyskaasi ay cabanayaan oo ay ka cabanayaan dadka falcelinta ay kala kulmaan markay baraha bulshada soo galaan. Marka muuqaalka u horeeyay waxaa jiraan dad isla dhaxmaraayo hooyadiisu guursaday. maxaa ka leedahay Ibrahim dadkaas? waxaan ka leeyahay ha iga yarato ama ha iga weynaato anaga ku jecel. ha iga weynaato ama ha iga yaraato anaa ku jecel. Anaa ku jecel. u sheeg dadka. ha iga yaraato ama ha iga weynaato anaa ku jecel. dadka isla dhex maraayo way ka weyn tahay. muuqaalka xiga aan eegno. waxaan u malaynaa dadka commentiga kusoo qoraayo hooyadiisu guursaday ama uu ka weyn yahay camal qaraar ahaayo. wajiga iska cadayso duruufa gabadha ka daba timid ay leeyihiin qaraar ahaayo. maxaa leedahay baby? dadkaas iska dhaafaan. wajiga iska cadayso kulaha. wajiga iska cadayso duruufa ka daba timid. duruuf ayaa ka daba timid ayay leeyihiin. bal duruufteeda iyo ka weynaanshaheeda iyo waxeeda dadkan maxaa geliyay? Allahu akbar. waxaa la marayaa heer qoysaskii la dumiyo, laga shaqeeyay in la dumiyo. dad baa moodaa in lagu soo siiyey baby inay anaga nacayaan. way kala weyn yihiin iyo hooyadiis miya iyo waxaan loo joogin camal oo kale haye. sakiinta la qaniyo. sakiin laqa. taas qararan war karaaniyo. laqa sakiin laqa. kuwa saas sameynaya sakiinta la sheegay laqa. assalaamu calaykum asxaabteyda. waxaan idin sheegayaa Soomaali maxamed meel walba ay joogaan saad ilaahaydan way weyn tahay. nin wiil yar bay guursatay. naagtu waa naag weyn uu ka weyn yahay. saad ilaahaydan waan xanuunsanahay iisoo duceeyeen ilaahay. aamiin aamiin. ilaahay subxaana watacaala caafimaad ha ku siiyo. wax walba oo tabanaysana ilaahay subxaana watacaala kaaga dhibdhaamo. nimanka naagaha warka la wareeganayo joojiya. commentiga soo qoray joojiya. qaarkoodna soo wacayaan saqdhahay hataa la dhaha TikTok ka soo wacayna wala yaane. dadkaas waa masiir ay dhan masiir ku jira. TikTok ma la iska soo wacaa? ani waa yaabay. TikTok ma la iska soo wacaa? dhibaatada lagu hayo waxay gaartay bay leeyihiin in la yiraahdo aan idhaahdo saq dhexe iyo xilli dambe habeenimo in la isdho TikTok la iska soo wacaya. Allahu akbar. warri Soomaaliya dhibka ma dadka ka deysaan. horta dadka hadda sidaan ku sii wadaan waa isku dareysaan waana kala geynaysaan. wallahi been idin ma sheegay. marka qoyskan qoys Soomaaliyeed waaye faraha laga qaado. maaragtay kama duwan oo dadkan qoysaska caadiga ah soo galiyo. haday duruuf ku nool yihiin qaxootiga joogaan. haday duruuf ku nool yihiin oo meelo qurqurxan aysan joogin ma ahan in culayska la saaro. kala weynaanta ay kala weyn yihiin oo waa qanaaco iyaga isku qanacsan yihiin. wax adiga ka jari kartay waxa ka dhimi karta midna ma lahan. ani marka waxaan oran lahaa dadkaasi masaakiinta in faraha laga qaado noloshoodana ayaga xor ee sidii doonaan ka sameeyeen. calaalkooda uu fara badan yahay. bal eeg hadana muuqaalkan. dad baa waxay dhaheen way sixirtay. wax lagu sixiro ma badiri baan sixirka la sheegayo ma aqaani ma fahantay. ani naag Muqdisho ku dhalatay oo Muqdisho ku soo barbaartay inta kula soo ka tahay. ciyaal raxma sixir ma garanayaan ba af Soomaaliya wax ku dhacsadaan. marka dad baa yiri bal YouTube-kayga anistar ku riixo ku qoranay soo booqday YouTube-kayga haddaan sixir aqaani hadii kaleeto ma fahantay. sixir ma aqaani YouTube-kayga hadii ka bacdi rabaa inaan soo geliyo nolosha ani isaga isku guursanay ama jaceelka la soo dhaxmaray. jaceel hadaa taqaanin inta jaceel taqaanana wallahi inta aqoonin ma salaamo. waa ku xirnaanayna insha Allah channel-kaagana waa la soconaynaa. laakiin family haddaad tihiin sidaa baraha bulshada kusoo gasheen waxaa ka qurux badan inaa maaragtay iska daysaan oo heesaha iyo waxyaabahaas aad kusoo galaysaan
waa intaasna waa waana iyaga aan leeyahay xoogaa dhankooda waaye. Dadkan kalena hadii waaba runtaa u sheegayna insha Allah. Marka muuqaalka xigaan isla eegno. asxaabi waan salaamay waa anigoo ah Esther Kurlibax waxaan halkan aan rabaa inaan ka hadlo dadka yiri gabadhaas intay joogtaa dad badan baa xataa isoo wacay soo koolin gareey lambarkayga gabdho badan oo aniga way isku kan dambeysoo lambarkayga TikTok igu soo dirdeen oo u direen oo igu soo qor meeshaan idheen oo u qoray meel ay ka heleen ma sheekar lambarkayga dad baa helo isoo wacay oo igu yiri gabadha ma qaxootiga joogtaa dhagaxley joogtaa mise qaxootiga joogtaa idheen qaxootigan jooga alxamdulillah dhagaxley jooga waan ku faraxsanahay dad badan oo Mareykan joogana waan dhaamaa oo shimbiri kabahooda qabaan ku ureen buudka ma saantay aniga dhagaxley inoo joogo qaxootigan ku faraxsanahay dadaab joogo marka waxaan idin leeyahay asxaabay intii ay tamaysayna meesha ku maadsantahay intii aniga ii taageeraysay oo aniga ii hadlaysayna boqolkiiba boqol way maadsanyiin one love for leeyahay ma fahamtay aniga dhagaxley anoo joogaan isku kalsoonahay aniga wadaadkayga cidna ma kala geen karto haddaan weyn haddaan yarahay asagaa u fiicanahay asxaabay intaas dhawaanaysa annagaa isku jecel sidaan hay annagaa isku jecel haddaan kala tagnana mar calafkeena kala dhammaan tagina bili aadan inuu kala geen keeno la kala geen kara horta jacaylku indha ma lahan weynin iyo yaraanna ma kala yaqaano anu dad waaweyn oo maanta weynin saas lagu tilmaamana meeshaan maba ka arko wiilka mida kale hadaa ogtiini haddii kalaba xaas horu asaga lahaa 4 ilmana waa u joogaan waa sida iyaga ay sheegeen marka waxaan laga badbadinin waa qoys caadi ah oo Soomaaliyeed duruufta qofka wadankii ku nool iyo qofka carada kale ku nool way kala duwan tahay waxa arkaysaa maamo 80 jirto oo wadanka aan ku nooleyna qurbaha ku nool laakiin aad gabar yar u maleyso gabar yar oo 15 jir ah oo wadankii ku nool duruufta jirta awgeed ay reebtay waxa arkaysaa inay kula noqoto na 50 jir marka gabadha iyo nolosheeda aan waxaan dhihi lahaa banaanka ha looga maro ha la fasaxo culayska la saarayna ha laga joojiyo bal aan eegna haddana muuqaalka xiga asxaabtayda waxaad igu wareeriseen aaway beebigaaga yaraa aaw macankayga waa kana laakiin waxaan useeyahay igu soo duceeya ishiinaa ku dhacday reer TikTok saa u tihiin harga baan bixaynin saawlaheedan ma hadlaayo cunahaada xirmabo soo duceeya waa ka macankayga waa kana waxay ku wareeriyeen ma hadlayo way qasbaysaa hadalaha uu sheegayo way u sheegaysaa anu kommentiyada waa akhriyay waxyaabaha dadka ay u qorqorayaan waxa jiro dadka baraha bulshada isticmaalo laba nooc weeye qofna wuxuu ka falceliyaa waxyaabaha loo soo qoro qalbiyan iyo maskaxiyan yacni dadka kala duwan ee ku daawanayo nooc walba ku jiro qof xun iyo qof fiican buu ku jiraa waxyaabaha xun dadka ku soo qori karaan waxyaabahaas hadii marka adiga aad ku mashquushid stress ayaa kugu dhacayo kadibna waxa laga yaabaa inaad qaab xun u falceliso heer adiga sumcadaada wax dhaawacaya aad ku hadasho qofna danka ma laha waxaas marka ani waxaan oran lahaa dadkaas wax ku soo qorqoraya marnaba ha eegin hana fiirinin hadda waxay leedahay beebigayga aaway ayaa igu wareeriseen waa kana waa soo celiyay yacni waxaa taas ka dareemaysaa in uu ka cararayba uusan soo gelin maalmo markii ay waayaan waxay leeyihiin awey markuu soo galana waxa weeye waa cunug yar iyo way sixratay iyo intay geysay iyo waxyaabo kale ay kala kulmaysaa marka waxa oran lahaa Soomaaliya hal isku xishoodo tani waxay keeni kartaa in qoyskaasi farxadiisa uu burburo qoyskaasi farxadda maanta isku haystaan ayaa wax walba uga muhiimsan baraha bulshada waa lagu wada jiraa cidna kama xigto adiga cid ka xigtid malahan siday u soo gashay adna u soo gali kartaa marka anu waxaan dhihi lahaa qanaacadooda ay meeshan isku maartay baraha bulshada keentay ayagana qanaacay isku doorteen marka qanaacadaas adiga ha kala dhex gelin saddexeena ha noqonin ayagana waxaan dhihi lahaa haddii aad qaab nidaamsan oo diinta waafaqsan oo dhaqanka waafaqsan aad baraha bulshada u soo gashaan cid wax idin yeelayso iyo cid idin caynaysa inaysan jiri lahayn ayaan filayaa qof walba oo wax idinku sameyn lahaa oo idinka xishoon lahaa marka idinkana dhanka wanaagsan inaad ka eegtaan ayaa rajeynayaa insha Allah farxadiinana Allah idin sii ziyaadiyo noloshiinana hore u sii wata meesha aan ka leeyahay iyo pointiga aan ka leeyahayna intii daawanayso qofkii wax fahmi karo uu fahmay dadkaasi waxaan jeclaan lahaa in farxadooda loo amaan geliyo channelkoodana u booqda. Assalaamu calaykum.